لكم النبي عليه الصلاة والسلام وحليه استوصوا بنساء خيرا وارهوينك خير الدردار ما بو نبي وفرق الله عدا لقى أبوري فرق الله عدا هذا السر هذا توسنا ويتشبه سابو النبي لي يعني نبي وحينات المامي عليه الصلاة والسلام قاب الله وضرق مكرام مركز تينو جرو سيبنا ننكيني مسؤولية صارنتي والرجل الراع كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيتي بنبي قفل بوها مسؤول قفل مناخره وحل ويديني الرعية ديسي وحل ويديني وحكم ده ريركي سيدا ضمام شيء يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ما ملك ريرك وحوبة هي كو وحين نار لقو قليانت كيلالسو وعديدت إلهي بردد وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها بالنبي محمد با إلهي كلي ريرك فر صلاة ده إذا ريرك كو وينت خير ودا نقو يدد waxaa kale gurigaasi looga baahan waxa weeyaan guriga dhexdiisa luqada lagaga wada hadlo dabadda inay u baxdaa waa mamnuuc yani waxa jira war ninka iyo gabadhu inay ku wada hadlaan ay bannaan tahay oo xalaal u ah laakiin inay labadooda dhaafto ay xaaraan tahay oo meel kale inuu u baxaa waa xaaraan warka odaga iyo islaanta u dhaxeeya gaarka ahi shareecadu waxay tiri inaan meel kale lagaga waramin ama meel kale aan u bixin weeyaan waxaan leenahay gabadha muslimadda wuxuu nabigu tilmaamayaa hadday shanteeda salaadood tukato oo bisheeda ramadaan soonto oo farjigeeda ay ilaashato oo ninkeeda ateecdo waxaa la yidhahdaa jannada albaabkaa doonta ka gal yacni imaara biduuni taaca wax socda maaha madax baa tahay laguna aqbali maayo haddii lagu yidhaha ka waran wax jira maaha waa mashkilad ku badan soomaalida dhaqankeeda guriga qura maaha soomaalida dhaqankeeda waxaad moodaa masaajidkan haddii la yidhaahdo afar soomaaliya loo dhibo madax baa tahay looma ogola inuu maamule haddana dadkunba odhanaya ma waxaan sidan la yidhaha macaynka lama aqbalayo asalku waxa weeyaan haddii madax la sameeyo dee madaxda waa in la aqbalaa gurigu madax buu leeyahay madaxdiisa haddaan la aqbalaynin dee waxba socon maayaan dumarku masalada waa inay fahmaan gurigu madax buu leeyahy yes madaxda waa lala talinayaa madaxda waxbaa loo sheegayaa madaxda waa waxa fiican baa la tusayaa laakiin akhiiran warku wuxuu noqdo haddaanay macsi ahayn waa in la aqbalaa haweentu gurigooda markay joogtay labadeeda waalid baa ugu mudan cid ay ateecdo labada waalid iyaga xorriyaddooda ka tanaasulay daacadoodii oo ninkugu daray markaad nin yeelato waxa warkiisa la hor aqbalayaa ninkaa ka horeeya labadaada waalid qofka dumarka ah ninka qaba ayaa ka horeeya maxay waalidka haddii warku noqonayo inay iskhilaafaan walidaalika daacadeedii waxay taagantahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa saxaabi baa shaam iyo meelahan bay yimaadeen mucaad ibnu jabal iyo shaam bay waxay arkeen wadaadada kiniisadda oo loo sujuudayo dabeetana markii uu soo noqday ayuu yidhi waar nebiga mudan in iyaba wadaadkoodii u sujuuday ma nebi maxamed nebiga waa inuu sujuud baabu iskala dhaca nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalam war waxaanaad waddaa waa maxay suu yidhi ilaahi rasuulkiisiyo shaam baan ka imiyo waxaan arkay iyadoo kiniisadii iyo kuwii loo sujuudayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sujuudda ilaahay mooyaane cid kale in loo sujuudaa ma bannaana qof kale loomana foorarsado lowyadana dhulka looma dhigo laysumana gaabiyo loomana sujuudo sharcigu wuxuu baneeyo ixtiraamku ugu jira inaad salaamu calaykum tidhaahdo taasaa ah ixtiraam kama dambaysta ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadu salaamu calaykum bay odhan jireen isagoo ilaahay rasuulkiisiiya dadna u fadli badan isagoo dad u fadli badan wixii lagu karaamayn jiray waa inaad adna ku karaamaysaa dadka aad karaamaynayso laakiin hadday sujuud iyo rukuuc noqoto ilaahay unbaa iskale subxaana wa tacaala rabbunbaa loo rukuuca loo sujuuda dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddiiba aan cid uun fari lahaa inay cid u sujuuddo gabadhaan odhan lahaa buu yidhi ninkaaga u sujuudo sujuuddu soo maha daacada halkii ugu dambaysay haddiiba uun laba qof la odhan lahaa ha laysu sujuudo gabadhaan ku odhan lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkaaga u sujuud taa macnaheedu waxa weeyaan gabadhu daaca mutlaqa inay la timaado waxaa jirta gabadh maraykana waa tan la yidhi dunidu waa simanta rag iyo dumarku waa simayin muddaa laga shaqeeyay feminist groupkan iyo warka kan uu tiro batay
guryihii baa dhismi waayey. gabadh maraykana waxay tijaabisay ninkeedii iyo wixii bay isdileen, way ka tagtay. dabeetana baxtay samaysay research, waxay raadacaysay guryuhu maxay u dumaan. baxdigeedii way waday. naag kastoo aan gurigeedu dumin bay soo waraysatay, naa maxaad samaysaa? waxay soo ogaatay guryaha aan dumin inay yihiin guryaha la kala dambeeyo. ninkii iyo gabadhu guryaha kala dambeeyaan inay tahy. dabeetana buug bay qortay la yidhaahdo, markaynu tarjunno, istaslimii lizawjik buug la yidhaaho, naa ninkaaga isu dhiib buug la yidhahday qortay. buugga yacni waxaad dareemaysaa fikradda tan sida baahida loo qabay. dabcadiisii koowaad 100,000 oo nusqo ayaa maratay fi awali dabca. gabadhii taajirad baabay ku noqotay buuggii yaraa. waxay noqotay dadka marmuuqee wax la weydiiyo. dabeetana waxaa bilaabmay ololo dambe oo dumar wadaan oo la leeyahay libaaxa haddaad isu dhiibta bay yidhaahdeen afkiisa waxa ku jiraad kala bixi kartaa. yacni waxay tilmaamayaan ninka hadduu noqdo aan isdilladana dee gabadhu ninka xoog badan mayso. haddii laakiin ay tahay aan ismaqallo waxa jeebkiisa ku jira way qaadan kartaa iyo isagaba. idan waxaa muhimkii wuxuu yahay haweenta xaqa ugu weynee lagu leeyay koowaad waa maxay? waa xaqu taaca, inay aqbasho ninka kan, inay u hoggaansanato maadaama iyadu dooratoo guursatay, gurigiisana inay u ilaaliso. waxaan ku soo koobaynaa markaa xuquuq badan baa laysku leeyey oo xaqii nafaqada ah, dhaqaalihiiya. ninkaa lagu leeyay inuu dhaqaalaa bixiyo, gabadha in la dhaqaaleeyo, carruurteeda in la dhaqaaleeyo, waxay u baahan yihiin in la siiyo, dhammaantood ninkaa lagu leeyay. markaynu soo duuduubno waxaynu leenahay waa xuquuq tiro badan oo kutubta ay qorto, laakiin haddii shareecadu siday sheegayso lagu dhaqmo guryuhu way dhisnaanayaan. masaladan ku khatimayo dariskeennan maanta wuxuu yahay mashkilaadka gurigu waa bashar isu yimi, soo maaha? bashar isu yimi oo aan wax isku qabanina ma jiraan. bashar isu yimi oo aan wax isku qaban ama muran dhex marini ma jiro. xataa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo muran ka dhacay, oo intay haweenkii wax is yidhaahdeen uu nebigu gurigaba ka baxay, meel dabada iska tegey, oo saxaabadii yaabtay, oo la war kutiri kutaani soo baxay, nebigiiba dumarkii furay, oo mushkiladii tiro badatay. oo waxaan uga jeedanaa mashkiladii way dhacdaa, laakiin inta badan bini aadamku waxa uu ku kala gedisan yahay waxa weeyaan sidee loo xallilaa mashkiladda, how to solve the problem. saad mashkiladda u xallilaysaa. siiba guryahan dabadda yimi iyo reerahan dabadda jooga, waa yeelkii hore waa laga soo fogaaday. markii waddanka la joogay waxaa laga yaabaa gabadha qaraabadeed baa joogay, eedooyinkeed, habaryaraheed, aabbaheed, awowyadeed, tolkeed. ninka sidoo kale labadooda ka guracan, cid la hadashaa la helayay, cid qabataa la helayay. xataa wuxuu ka xishoonayay, wuu ceeboobayay, oo de reerka dhexdiisiiya wixii marka la ydhaho warkan jacjacoorkaee gabadhan sida u gelaya la ydhaho wuu ka xishoonayay. wax badan oo culturally qofka ku xeeran baa jiray oo inuu toosnaado iyo gabadhuba inay toosnaato keensanayay. laakiin markii dabadda loo soo baxay kow culturkaasoo dhammi wuu lumay, cidiba kuguma xeerree, keligaa baad joogtaa. beriskana mid waliba gaarkiisa uu helayaa, gabadhuna beriskeeda gaar bay u heli kartaa, ninkuna beriskiisa gaar buu u heli karaa. dabeetana waxay noqotay ayi mashkila yar oo dhacda inay noqoto maryaa inoo kala gurun, ma waxba kale awalba isugu keen jiray, shandadaada qaado. ayi mashkila yar oo dhacda inay noqoto uun in reerku uu maryaha kala soocdo oo u kala tago. waxaa lumay markaa qiimihii gurigu lahaa iyo reerka iyo carruurta iyo ubadka iyo mustaqbalka ayaan qiimo la siinin. waxaa qiimo la siiyey 2 kelmadood oo laysku qabtay, 2 weedhood ama wax yar oo laysku qabto oo muran ka taagan yahay ayaa wixii wanaag ahaayee kaloo dhan ee la samaynayey lagu ilaabay. waxaa habboon inuu muranku yeesho xad iyo qaab khilaafka loo daweeyo. haddiiba uu guriga ka yimaado inuu yeesho qaab khilaafka loo daweeyo. marka waxaan ku soo koobayaa uun
haddii khilaafkaasi usluubkiisa la raaco waa wax fudud oo dawaysmi kara haddaan se la raacin waa burburka guryaha ee tirada badan le meesha u ka yimaado maanta halkaasaan ku joojinaya wallahu aclam billahi towfiiq wasalaamu calaykum